sanadkii la soo dhaafay aan ka fikirno sida aan u fikirnay iyo wixii aan soo qabanay wax ka duwan inaan samayno sanadka hadda noo bilowday si haddii la yidhaahdo ciidan ciiddeeda kale aan isugu xisaabin karno sidii hore si ka duwan waa inaan isku daynaa inaan ka fikirnaa in sidii aan marar badan hore u sheegnay aan isu sheegnay inaan ka shaqayno inaan dhisanno dal kulligaan aan ku wada noolaan karno si aan u dhisanno waa inaan isku daynaa ama ka wada shaqaynaa inaan iska qaadno isbaarooyinka inaan iska qaadno isbaarada qabyaaladda isbaarooyinka musuqmaasuqa isbaarooyinka ninjeclaysiga isbaarooyinka maalintaajirnimada isbaarooyinka danta gaarka ah isbaarooyinka shisheeye kalkaalka isbaarooyinka dhaqanka qaldamay isbaarooyinka hamiga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed hoos u dhigay waa inaan ka weynaanaa haddii aan Soomaali nahay wixii hore waan ogaanaa carruurteennu iyo dhallinyarada halkan joogto tirada badan ilaahay ha barakeeyo inay mustaqbal laga rabaan mustaqbalkaasna dadkeenna mas-uuliyadda iyo qof walba oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed xil u haya ayaa laga rabaa maanta marka annagoo isu naxariisanayna isxisaabinayna waxaan marka ugu horeysa tahniyad u dirayaa dadka Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed ku jira oo mas'uuliyiinta qof walba waa inuu ogaado mas'uuliyadiisa in Ilaahay kula xisaabtamayo qof walba waa inuu ogaado waxa uu haayo in shacabka Soomaaliyeed ay ku aamineen qof walba marka waa inuu asagu iska bilaabo inteena kale oo shacab Soomaaliyeed ah kulligeen waxaa la rabaa annaguna inaan isxisaabino meel walbood ka shaqaysid haddii aad ganacsado tahay haddii aad miidiyada ka shaqaysid oo saxaafadda joogtid haddii aad tahay qof qurbaha jooga oo dalkiisa bannaanka ka soo fiiriya ama shaqaale caadi aad tahay qof walba oo Soomaaliyeed waajib ayaa saaran waajibkaas waa inaan ka dhabaynaa ilaahay maanta waxaan ka rajaynayaa inay noqoto maalintii kulligeen aan wada garanay in waajibkaas ummadda ay nagu leedahay aan ka soo baxno waxaan u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed oo iyadoo xaaladdu ay dhib tahay mar walba u dulqaato dawladnimada laakiin dulqaadkaasi waa muhiim sida keliya oo aan mustaqbal ku yeelan karno waxay tahay inaan dulqaadkaas ku wada shaqayno laakiin dulqaadku ahaadaa inuu isla xisaabtan ku salaysan yahay waa idin ducaynayaa waa idin hambaleynayaa